gabadhaani waxa ay soo degtay hoteel. Markii ugu horeysay ay soo degtay waxaa loo soo gargaraacay albaabka. Markii ay furtayna cidna waa ay weysay. Sidoo kale mar labaad waxaa loo soo gargaraacay albaabkii. Markaana waxa ay dareentay baqdin. Iyadoo tartiib ah u socod ayay waxay ka fiirisay duleelka cidda taagan banaanka. Markii ay albaabkii furtayna cidna waa ay weysay. Kadib markii ay soo laabatay waxa u soo dhacay telefoon. Waxa ayna la hadlaysay saaxiibkeeda. Iyadoo sidii ula hadlaysa ayaa haddana waxaa la soo gargaraacay albaabkii. Markaani ma aysan ahayn gargaaritaanka albaabka ee waxa uu ahaa saqafka sare ee guriga. Iyadoo la yaaban taasi ayaa waxay ku tiri saaxiibkeeda aniga ayaa kugu soo celinayo. Kadibna waxa ay wacday qaybta shaqaalaha. Waxa ayna u sheegtay in saqafka sare ee wax lagu gargaraacayo. Kadib wiil ka mid ah shaqaalaha ayaa waxa uu yiri aniga ayaa ku imaanayo. Markaana iyadoo TV iska daawanaysa ayaa haddana si lama filaan ah qaybta sare wax lagu soo gargaraacay. Markaana waxa ay go'aansatay in ay soo fiiriso ayna aado dabaqa ka sareeya. Waxay gargaraacday albaabkii laakiin isaga keligiis ayaa is furay. Waxay hor u soo gashay qolkii iyadoo leh weliba cid miyaa joogta halkaani. Laakiin si cidna ma aysan u jawaabin. Waxa ayna daartay nalkii. Markii ay hore u soo gashay waxaa hal mar la damiyay leerkii. Waxa ayna gadaasheeda ka maqashay shanqar. Waxaa ka soo doobaxay wiilkii shaqaalaha ahaa. Waxa uu rabay inuu soo hubiyo cidda qolkaani ku jirto. Laakiinse isagana marka uu soo galay waxa uu la kulmay gabadhii oo isbedeshay. Waxa ayna ku soo booday isagii. Waa ayna xiijisay.